wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay tahay wax laga xumaado Axmed Madoobe in mar kale uu qorsheysto doorasho dadban inuu ku qabsado magaalada Kismaayo taas oo dawladdu ay sheegtay in uusan doonayn in tartan uu galo isla markaana Axmed Madoobe uu qorsheynayo in kursiga uu ku soo laabto wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya qoraalkeeda waxa ay ku sheegtay in marna aysan aqoonsanayn waxa halka ka soo bixi doona iyo in iyadu guud ahaanba dawladdu aysan raali ka ahayn in halkaasi ay ka dhacdo wax doorasho wasaaraddu waxay digniin u jirtay maamulka Axmed Madoobe oo ay u sheegtay hadii uu isku dayo in doorasho uu qabto wixii ka dhasha isaga uu madaxa saaran doono waana digniin adag oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya ee ku aadan in Axmed Madoobe uusan qaadi doonin wax talaabo oo ku aadan arrimaha doorashooyinka hadalka wasaaradda arrimaha gudaha marka laga tago dawladda federaalka Soomaaliya dadku waxay isweydiinayaan galaangal xoogan ma ku leedahay awood maamulka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo Axmed Madoobe oo dhowr iyo 10 sano u dambeeyay Kismaayo isaga gacanta ugu jirtay waxa uu guud ahaan xakameeyay dhaqdhaqaaq kasta oo magaalada hal wado oo kaliya ayaa Kismaayo u furan oo ah dhinaca cirka mana jiro cid magaalada Kismaayo ka degi karta amar la'aantii marka la eego Kismaayo kaliya waxa tagi kara qofka marka Madoobe uu raaliga ka yahay balse Axmed Madoobe gudiga doorashada uu sameystay waxay noqonaysaa mid dhaqan galiya qorshe Axmed Madoobe uu doonayo in markii afraad kursiga uu ku soo laabto Madoobe ayaa isaga guud ahaanba waxa uu diiday wada hadalkii dawladda federaalka Soomaaliya ee shirkii madasha wada tashiga ee Muqdisho ku fashilmay kadib markii uu shirka ka baxay xilliga isaga waxa uu qorsheynayay inuu qabsado doorashada marka uu rabo halka dawladda federaalka Soomaaliya iyana ay qorsheynaysay in maamulada sanad loogu daro si ay u diyaariyaan qorshaha doorasho qof iyo cod oo ka dhacda deegaanada Axmed Madoobe oo siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka deegaanada uu maamulo guud ahaanba si cad ay kaga soo horjeedaan ayaa hadii doorasho qof iyo cod noqoto waxa uu aaminsan yahay inaysan jirin cid cod uu ka helayo taasna waxa ay keentay in uu xildhibaanada gacan ku sameeyska ee uu ku haysto magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland isaga mar kale ay u codeeyaan Kismaayo wali waxa ku sugan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo Axmed Madoobe isaga qorshihiisa ugu weynaa ay ahayd marka uu geeyay kadib inuu ku dhawaaqo gudigiisa doorashada taas oo kama dambeeyna sababtay in gudi doorasho uu ku dhawaaqo isla markaana uu si cad u sheego in halkaasi December uu ka qaban doono doorasho halkaasi ka dhacda mar kale isla markaana uu rabo in uu ku soo baxo warar kale ayaa inoo soo socda barkan isla Kismaayo hadaanu fiirino Axmed Madoobe xalay waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay gudi doorasho oo diyaarin doona hanaanka doorashada maamulka Jubbaland ee inta uu san dhamaan sanadka 2024 gudi ka kooban ilaa 7 xubnood ayuu Axmed Madoobe xalay warqad ku soo magacaabay isagoo sheegay in gudigan ay ka shaqeyn doonaan doorashooyinka maamulka Jubbaland Axmed Madoobe waxa la filayay in maalmihii dambaba uu ku howlanaa sidii guud ahaanba uu u soo magacaabi lahaa gudi doorasho oo qaban qaabiya doorashadiisa afraad ee uu qorsheynayo inuu ku soo baxo arinta xalay ma aysan ahayn mid dad badan ay la yaabeen maadaama labadii toddobaad ee ugu dambeeyay Axmed Madoobe laga filayay in uu soo saaro warqadda gudi doorasho inkastoo shakhsiyaadkii la filayay in gudigaasi doorashada ay ku soo baxaan qaarkood aanay imaan halka kuwa kalena uu ku soo daray toddobadan xubnood ee gudiga doorashada Axmed Madoobe uu magacaabay ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa isaga ugu daacadsan marka la eego isla markaana fulin kara qorshe kasta ee Axmed Madoobe uu doonayo in mar kale kursiga uu ku soo laabto musharaxiin badan ayaa hadda ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ee ku meel gaarka kuwaas oo iyagu qorsheynaya in doorashada sanadkan mar kale ay ka qayb galaan balse culayska ugu badan ee siyaasiyiinta iyaga ay qabaan ayaa kadib markii Axmed Madoobe uu dul dhigay cadaadis xooggan oo dhinaca ammaanka waxa jira musharaxiinta iyagu ilaalo si gaar ah u sameysteen kuwaas oo amnigooda xaqiijinaya balse Madoobe ayaa warqad uu soo saaray kadib kulan uu la qaatay taliyaha NISA ee maamulka Jubbaland waxa la dul dhigay in ammaanka ay sugi doonaan ciidamada booliiska maamulka Jubbaland isla markaana aysan jiri doonin cid kale oo ammaankooda sugi karta taasina waxay keentay shaki horle oo ku abuurmay siyaasiyiinta musharaxiinta maamulka Jubbaland kuwaas oo iyagu diiday in ammaankooda aysan ku aamini karin ciidanka daacadda waa Axmed Madoobe ee booliiska maamulkaasi siyaasiyiintu iyagu oo dhawaan shir jaraa'id qabta waxa ay sheegeen in marna aysan suuragali karin in ay qaataan hadalka Axmed Madoobe ee ku aadan in ammaankooda uu sugayo waxayna
warka keeneen in shakhsi ay la tartamayaan aysan suuragal noqon karin in ammaankiisa isaga uu sugo waana sababta keentay walaaca musharaxiinta maamulka Jubbaland. waxaa jira musharaxiin kale oo iyagu ku sugan magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale Nairobi kuwaas oo labadii maalmood u dambeeyay qabanayay shirar kala duwan oo ku aadan diidmada Axmed Madoobe in mar kale kursiga uu ku soo laabto. Madoobe ayaa isaga waxaa dhici doonta in uu keensado musharaxiin isaga malxiis u ah kuwaas oo qorsheynaya marka doorashada la gaaro in codadka ay siiyaan ama ay tanasulaanba marka doorashooyinka si rasmi ah u bilaawdaan si guud ahaanba mar kale Axmed uu kugu soo baxo in uu noqdo madaxweynaha maamulka Jubbaland. markaana haddii aanu fiirino maamulka Galmudug ayaa isna waxa uu sheegay in si rasmi ah ay u qaban doonaan doorasho qof iyo cod ah. madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo waraysi bixinaya waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo sidoo kale xildhibaanadaba ay soo dooran doonaan dadka deegaanka isla markaana uu fulin doono go'aanadii ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran ee lagu go'aamiyay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa uu sheegay deegaanada gacanta ugu jira maamulka Galmudug iyo sidoo kale dawladda Soomaaliyaba ay diyaar u yihiin isla markaana ay wadaan qorshaha ku aadan sidii guud ahaanba halkaas ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah. golayaal deegaan ayaa hadda ka samaysan deegaanada maamulka Galmudug inkastoo wali si rasmi ah aan loo dhameystirin degmooyinka oo idil haddana waxaa la qorsheynayaa inta sanadkan ka dhiman in golayaasha deegaanka si toos ah loo soo dhameystiro kadibna loo dareero doorasho qof iyo cod ah. 2026 ayaa la qorsheynayaa in guud ahaanba dalka ay si rasmi ah kaga dhacdo doorasho qof iyo cod ah. haddii aysan dhicinna waxaa suuragal noqon karta in hal sano oo dheeriya lagu darsado si guud ahaanba dalka looga qabto doorasho qof iyo cod ah. Qoorqoor waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si rasmi ah uga dhawaajiya in uu qabanayo doorasho qof iyo cod ah. maamulada kale marka la eego Jubbaland iyadu waxay qabsanaysaa doorasho iskeeda. Hirshabelle wali kama aysan hadlin inay qabanayso doorasho qof iyo cod ah inkastoo la og yahay in dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya ay jirto. markaan u fiirino Koonfur Galbeed sida ay islamada iyana waxay qorsheynaysaa in doorasho iskeeda ay qabsato walow xiriirka madaxweyne Xasan Sheikh iyo sidoo kale lafta gareen ay isku soo dhawaanayeen muddooyinkii dambe haddana mar walba waxaa la filan karaa in lafta gareen uu mar qura isrogo ama uu isbedelo taasoo keeni karta in uu halkaas ka qabsado doorasho marka uu doonayo in isaga mar kale uu ku soo baxo. Puntland iyadoo 2 sano iyo wax ka badan oo hor leh ayaa u haray doorashadeeda sida caadiga ahaydna Puntland doorashadeeda dawladda federaalka Soomaaliya awood buuxda uma lahan inay faragashato sida maamulka Jubbaland oo kale. maamulada hadda sida tooska u faragelin karto dawladda federaalka Soomaaliya dhanka doorashooyinka marka la gaaro waxa ugu cadcad Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle oo iyadu awood badan ay ku leedahay. balse Koonfur Galbeed marka la eego waxa suuragal noqon karta lafta gareen oo Ethiopian dhabarka ka taagan yahay in isna markiisa uu ogolaado in doorashada uu rabo halka uu ka qabsado. gabagabadii